macrakatul Buwayb. Silsiladii dagaalada Xuruub Ridda kadib, Muslimiintu waxay bilaabeen inay qorsheeyaan diinta sida ugu faafin lahaayeen adduunka daafihiisa. Labadii dowladood ee ugu waaweyn xilligaas waxay kala ahaayeen dowladdii Farisiyiinta iyo Roomaanka. Waxaa cajiib ah inay go'aansadeen hal mar inay weeraraan labada dowlad. Wayna weerareen, dagaaladina way ku guuleysteen ilaa la iskaga hor imaaday dagaalkii Al-Jisr. Dagaalkan wuxuu ka dhacay magaalo la dhaho Qasru Naatif. Waxay iskaga hor imaadeen buundo kor marta webiga Al-Furaat. Farisiyiintii waxay dhaheen, ma noo imaanaysiin mise waa idiin imaanaa? qaladka Muslimiinta maalinkaas ay galeen wuxuu ahaa inay buundada jareen dhanka cadowgana tageen. Kadib Muslimiinta markii la jabiyey dib way u soo laaban waayeen oo cadowga horey ka jiray gadaalna buundada. Maalinkaas Muslimiinta khasaare aad u weyn ayaa la soo gaarsiiyey ilaa kala bar ciidanka la dilay. Farisiyiinta markay arkeen inay Muslimiinta ka adkaadeen way farxeen, waxayna isku qireen inay yihiin awoodda ugu sareysa. Kadib Rustum wuxuu diyaariyey ciidan ka badan 70,000, badankooduna ay ahaayeen fardooley. Wuxuu hogaamiye ahaan ugu magacaabay hogaamiyihiisii caanka ahaa Mahraan bin Bazaan. Dhinaca kale, Muslimiinta waxay ahaayeen 12,000 oo keliya, waxaana hogaaminayay Al-Muthanna bin Al-Harith. Wuxuu ahaa dagaalyahan caqli badan. Dagaalkii Al-Jisr ee Muslimiinta lagu jabiyey wuxuu ka qaatay cashir. Markaan dagaalku wuxuu ka dhex rabaa isla geesaha webiga Al-Furaat. Wuxuu cadowga uga soo hormaray goobta dagaalka dhinaca galbeed ee webiga ayuuna saldhigtay. Maalinkaas maadaama ciidanka uu soomanaa, wuxuu dhahay afura si aad gaalada iskaga dhicisaan. Sidoo kale wuxuu ciidanka u kala qaybiyey qabaa'ilo. Tusaale, dhinaca midig waxaa ka dagaalamaya qabiil Hebel, dhinaca kalena waxaa ka dagaalamaya qabiil Hebel, si xamaasadda iyo dhiiranaanta ciidanka u kiciyo. Kadibna wuxuu guda galay inuu ciidanka u qudbeeyo uu dhiirigeliyo. Ciidankii uu hogaaminayay Mahraan bin Bazaan waxay imaadeen ayagoo cabaysan oo dagaalka u xiise qaba. Qof ayay soo direen, ma idiin imaanaa mise waa noo imaanaysiin? Al-Muthanna wuxuu dhahay, noo imaada. Dagaalkii wuu bilowday. Waxaa la dilay Al-Muthanna walaalkiis. Kadib Muslimiinta dagaalka ayay sii xoojiyeen ilaa cadowga ay u kala qaybiyeen 2 qaybood. Ugu dambeyn, Cabdullaahi bin Jubayr wuxuu gaaray teendadii hogaamiyihii Furuska, Mahraan bin Bazaan wuuna dilay. Ciidankii kala carar ayaa ku dhacay, meel ay u cararaan ma lahan. Gadaal waxaa ka jira webiga, horeyna waxaa ka jira Muslimiinta. In badan oo ka mid ah waa la laayay, waxaana lagu sheegaa ilaa 50,000 oo nin in lagu dilay dagaalkaas. Sidaasna ayay ku guuleysteen Muslimiinta macrakatul Buwayb.